doodteedii hore maxaa ku jira inuu gudoomiye dhakhaatiirta ayaa noo sheegtay luul in aanay dhib qabin warkaasaa ku jiray doodaada hore iyo in aanay gaas maaragtay ka soo uray dhakhaatiirta warkaas idiin sheegay kuwa waaye dhakhaatiirtii la hor keenay maxkamadda gobolka isbitaalkii ugu horeeyey capital dr ciisan fila caalamiga mar aan weydiinay su-aasha gudubka ah ayaan waxaan weydiinay ma jirtay wax ka soo urayay luul korkeeda awkaate dhakhaatiirtu xukunka maxkamadda asbaabtiisa qodobada 6 7 8 9 iyo 10 waxaa ku qoran warkii ay sheegeen dhakhaatiirtu warkaas wuxuu sheegayaa dhaktar ka mid ah wuxuu sheegayaa boqolkiiba 90 shirkeedu inuu gubtay waxay sheegayaan lakabka saddexaad inuu gaadhay waxay sheegayaan fursadda ay ku badbaadi kartay dabkaa kaga badbaadi kartay boqolkiiba 10 inuu ahaa dhammaan warkaas wuxuu ku qorayay xukunka maxkamadda qaybta asbaabta qodobada 6 ilaa iyo 10 marka warkii naas markaa dhaqaad ka duwan warkaa ku qoran asbaabta maxkamadda dhaqaatiirtu inay idin sheegtaa halkii dhakhaatiirta waxaa la weydiiyey ma ka urayay gaas racfaanka maxkamadda racfaanka weyn haddaan raadiyeyna inaan ka heli karo wax gaasa kama uraynin buu yiri cabdixakiim in la dhahaan jeclaan lahaa dhakhtarkaas waa gabadha faaduma aha dhakhtarka ku okay warkaaga waxaa kaloo ku jirtay doodaada inkastoo su'aalahan duruucii la xilaa idinka dabcan galay waxa ku jirtay lama yaqaano sababta ay u dhimatay luul lama garanayo warka halkan aan ku aqeeyno waxa ku qoran gaar ahaan dhakhaatiirta warkooda ay maxkamaddu tabinayso luul allah u naxariistay inay u dhimatay dab oo sababay gaas warka idigu marka halkee ka keentay dabkooda dhiman okay waxa waaye mudan gudoomiye markii mas'alaan oo kale ay timaado isbitaalna uu qof ruuxa ama bukaan yaallo ee la isku qabsado oo ay ka timaado dood sharciyeed waxaa muhiim ah in la xil saaro dhakhaatiir gaar ah oo ku takhasustay baarista qaabka qofka geeridiisa ay ku timid legal medicine la dhahaa dhakhaatiirtaas laakiin ma aha dhakhtarkii gacanta ku hayay oo ay kala dhaxaysay xiriir ganacsi marka ugu horeyso haddana maxaad u jeedaa xiriir ganacsi oo kala dhaxeeya xiriir ganacsi waxaan ula jeedaa marka marxuumadda la geynayay isbitaalka waxay ku gashay isbitaalka dhaqaale waxayna ku joogtay dhaqaalay ku joogtay warkaagu dhakhtarku been buu sheegayaa miya dhakhtarka wuxuu samaynayaa difaac uu samaynayaa waayo warkiiga taas marka ma ahayn in asiga la weydiiyo waxay ahayd cid ka baxsan dhakhaatiirtii gacanta ku haysay in gacanta loo geliyo baaritaanna lagu sameeyo si loo helo go-aan cadaalad ah oo dhexdhexaad ah oo labada dhinacba warkooda loo qaadan karo laakiin haddii dhakhaatiirtii gacanta ku haysay ay maxkamadda u isticmaashay xukunkeeda waa dhakhaatiir gacanta ku hayay bukaankii sabab kasta ee uu u dhigi karo oo uu culayska asaga iskaga qaadi karo ama uu caliba saari karo ayay ku dhaqmayaan sidaas darteed go-aan cadaaladeed oo dhexdhexaad ah kama soo bixin